dib u dhaca ka jira Hirshabeelle ayaa la sheegay in sabab uu u yahay masuq baahsan ee ay sameynayaan madaxda sare ee maamulkaas. Warbixintan waxaa Jowhar inooga soo diray wariyaheena Yuusuf Abubakar Ibraahim. wax ka badan 2 sano ayuu dhisan yahay maamulka Hirshabeelle oo ku midaysan labada gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. ma jirto ilaa hadda horumar la taaban karo oo uu sameeyay maamulkan. dhibaatooyin badan ayaa ku habsaday shacabka ku dhaqan deegaamada Hirshabeelle, haba ugu darnaato amni xumo, colaad beeleedyo soo laalaabtay iyo isbaarooyin xad dhaaf oo ay dhigtaan ciidamada isla markaana lacago looga qaato shacabka. marka laga soo tago dhibaatooyinkaasna waxaa shacabka ay bixiyaan lacago canshuur ah oo maamulka ay siiyaan, taas oo aan waxba loogu qaban. sidoo kale maamulka Hirshabeelle ayaa lacago bil walba ka hela dawladda dhexe ee federaalka, taas oo uu xildhibaan Batalaale oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Hirshabeelle cadadeeda ku sheegay $710,000. Hirshabeelle ilaa hadda inta ognahay dawladda federaalka waxaa ka soo gasho $710,000 soo gashay bishii. wasiir dawladda maaliyadda yiri ani ma dhihni baana sidii xildhibaan culo oo sheegay waa record gareysan tahay 500 oo meel iyo 210,000 oo meel. waxaa intaasi dheer lacagaha canshuurta ah ee laga qaado kaliya kastamyada ku yaala Shabeellaha Dhexe oo la sheegay inay ka soo xarooto $10,000 lacag ka badan maalin walba. lacagahaas oo madaxda Hirshabeelle si hoos ay u kala qaataan, sida uu marka la sheegayo xildhibaan Batalaale. kastamada Hirshabeelle ee leedahay oo amba Shabeellaha Dhexe ku yaalo amba Hiiraan ku yaalana waa la ogyahay inta ka soo xarooto. xildhibaanada oo gobolka Hiiraan ka soo jeedo qaasatan xildhibaanadii muddadii ugu dambeysay xaggaas joogay ayaga nooga faradho dhuubanaya ayaga u daynaya. aniga inta aan ogahay gobolka Shabeellaha Dhexe maalintii waxa ka soo xarooto inta u dhaxayso $10,000 ilaa $15,000 maalintii ka soo xarooto gobolka Shabeellaha Dhexe. wasaaradda maaliyaddana waxaa ku dhacdo $4,000 oo kaliya markay ugu badan tahay, markay ugu yar tahayna $2,000 ku dhacdo. inta ka sokaysana si hoos ah lagu kala qaataa, ama madaxweynaha qaato ama madaxweyne ku-xigeenka qaato. xildhibaan aadan cabdi faarax ayaa si toos ah shaaca uga qaaday musuqmaasuqa ka jira Hirshabeelle ee madaxda sare ay sameeyaan, isagoo sheegay in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa uu nin walba jeebka ku shubto lacagaha canshuurta ah ee laga qaado gobolka uu ka soo jeedo. lacagta Hiiraan ka timaado oo dhaqaalaha faraha badan waxaa muxuu ahay qaato gudoomiyaha gobolkii ku-xigeenadiisa dhinaca wakiilkii madaxweynaha u joogay oo muxuu ahay iskudubaha ay oo madaxweynaha u soo toogay Ciisa iyo gudoonka baarlamaanka oo ayagana shaqaan ahayn dhinaca Hiiraan. waa saas gobolka Shabeellaha Dhexe lacagta laga qaado oo sida uu noo sheegay xildhibaan culow madaxweyne ku-xigeenka asana cuna lacagtaas cid kale oo tamalaha. Jowhar waxay caasimad u tahay maamulka Hirshabeelle. 2 sano ayuu ku shaqeynayaa maamulka, haddana dadka ku dhaqan dhibaatooyin badan ayay qabaan. marka loo eego burburka wadooyinka oo marka roob yimaado aan la mari karin, nadaafad xumi jirta, mugdiga magaalada ka jira maadaama leerarkii ku shaqeynaya cadceedda intooda badan ay u dameen cilad bixin la'aan. iyagoo uu haysto dhibka oo dhan ayaa haddana loogu daray ganaax. inkasta oo gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Baarey is hortaagay shacabka dhibaataysan in la sii dhibaateeyo, haddana waxaa loo sheegay in amarka dadka lagu ganaaxayo uu ka soo baxay madaxda sare ee Hirshabeelle, gaar ahaan madaxweyne xigeenka Cabdullaahi Xaaji Fiqi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa cadeeyay inaysan jirin wax lagu qabtay lacagaha dadka laga qaado iyo midda dawladda dhexe ay siiso Hirshabeelle. ka xildhibaan ahaana lacagahaas aanan la siin xitaa ay laayihiin iyaga xuquuqdoodii. ilaa wixii soo dhiibana nasiimaayo wixii meeshaan ay ka aruursanayaan nasiimayaan ummadana wax lagu qabo jid la dhisa mare, isbitaal la dhisa mare, iskuul la dhisa mare, wax la qabto horumar male dalka. balaayaaba dib noo qabsato baabuurkeena kuma jirna kuma soo markan kuma socon karo kana shaqay maayaan ayaa loo ciidamayaa hal. haddii baarlamaanka Hirshabeelle ay ka cabanayaan xuquuq la'aan, dawladda dhexena ay Hirshabeelle siiso bil walba $710,000 canshuuraha laga qaado dadka ku dhaqan labada gobolna ay ka badan yihiin maalintii $20,000, xagee ku baxdaa lacagtan? tani waxay caddayn u tahay musuqmaasuqa baahay ee ka jira Hirshabeelle, isla markaana curyaamiyo howlihii shacabka loo qaban lahaa. marka laga hadlo dawlad goboleedka dhexdiisana, Hirshabeelle wasiiradeeda waxaana loo hirgelin ilaa iyo hadda xafiisyo ay ku shaqeeyaan. Yuusuf Abubakar Ibraahim, Shabeellaha Dhexe.